iyo barnaamijkeeda. هلا دجيو أقول عضي بقول يو سيدات حلبان سلاسة يستحقفان حلبان كلها شعبك يحمناها كلها وسيرة وعيد السلامية إن شاء الله تعالى وحين وجود بينا دارت الدستورية أو كذي قضبك بقولي أفر دستورك كميلجارك جمهورية فدرالك الصومالية waxaan akhrin doonaa dhaartu sida ay ugu qoran tahay qodobka waxaana diga daba odhan doontaan dhaartaas aan akhrin doono isagoo qof walba kitaabka hortiisa yaala gacanta saari doono insha Allah waxaan bilaabaynaa dhaartii waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u gudanayo si dalka dadka iyo diintu ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala waa mahadsantihiin Allah idin fududeeyo xilka aad qaadeen waana idinku hambalyeynaa waana idinku ducaynaa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh waxaan idinkaga mahad celinayaa kalsoonidii buuxda ee aad siiseen golaha wasiirada cusub iyo barnaamijka xukuumadda waxaan rabaa halkan inaan ku xuso kalsoonidii ay siiseen kalfadhigii kan ka horreeyay ee ra'iisul wasaarenimada inaad ii siiseen si buuxda aad ayaan ugu farxay oo qofna uga harin maantana sidoo kale ayaan idinkaga mahad celinayaa sida buuxda aad u taageerteen inkastoo uu dalku galay xilli doorasho haddana golaha wasiirada cusub waxaa hor yaalla dardargelinta howlaha wasaaradaha iyo kamari dhalinta barnaamijka xukuumadda waxaan أنا أبغى وبريا سبحانه وتعالى إنه خذيه وجدشده هولهذا مدنيال يمروين وحن أرتينا كل دردارنا يا جلها وزير هذا إني كذا بيان حقيقيانا هنك أمضى الصوماليات وقبان دولة كل قيس سرين الشرعية كانت ترجمان ربيتان كشعب الصوماليات ملك السوق جوجو ugu dambeyn waxaan fursadan uga faa'iideysanayaa codsi ku socda qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed in ay taageeraan lana shaqeeyaan hay'adaha dawladda guud ahaan gaar ahaan kuwa amniga sidoo kale waxaan ka codsanayaa dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka in ay si degdeg ah u soo dhameystiraan soo gudbintii xubnaha u matalaya gudiyada doorashooyinka ilaaliyana qoondada haweenka meel kastoo Soomaaliya joogto ay ka soo wacayeen dumarka Soomaaliyeed iyagoo codsanaya in la ilaaliyo qoondooyinka haweenka Soomaaliyeed waad mahadsantihiin billahi tawfiiq